بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo nagu hadlayno xaaladda dalka uu marayo runtii waxyaalaha igu dhaliyay shirkan jaraa'idna waxaa ka mid ah kulamo aan labadii bilood ee la soo dhaafay aan la lahaa dad qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid ah hadday yihiin aqoon-yahan dad xukuumadda ka tirsan baarlamaanka xubno ka ah bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ganacsatada suxufiyiinta iyo dad kale oo kamid ah qaybaha bulshada oo runtii 200 kor u dhaafaya markaan qiyaasay kulamada dadkaas aan la yeeshay oo intaas oo dhan ay isku mid ka ahaayeen inay muujinayeen walaac xoogan oo ay ka qabaan xaaladda dalka uu ku sugan yahay haddii ay tahay dhinaca itijaah siyaasadeed dalkii uusan lahayn xaaladda amni oo la dagaalankii al-shabaab oo istaagay madaxdii oo iska noqotay dad safar isaga jira tusaale ahaan madaxweynaha keliya 5 safar oo isku xigta ayuu magaalada Nairobi ku tagay toddobaadkiina dhaafay saddexda madax ee dalka ugu sarreysa ayaa Nairobi isku daba maray waxaa kaloo intaa dheer musuq aad u baahay oo ay dadkii ka cabanayaan waxaas oo dhan waxay keeneen in uu dalkii u muuqdo in uu yahay mid rajo aysan ka soo bidhaamaynin dawladda sideedaba waa inay leedahay 3 tiir oo ay ku taagan tahay midka koowaad waa inay leedahay awood waxaan ay yiraahdaan authority oo ay dhul uga taliso waa inay leedahay capacity ama karti ay dadka ugu adeegto ay wax ugu qabato iyo inay leedahay sharciyad legitimacy waxa la yiraahdo oo ay dadku aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo ay soo doorteen waxa gabi ahaanba lala tacaalayay in la helo dawlad awood leh iyo dawlad karti leh laakiin halkii wax aan hayne ee ahayd dawladdu inay sharciyad leedahay ayaa meesha laga saaray sida la socotaan madaxdii laanta fulinta u weynaa madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dawlad goboleedka marka laga reebo Puntland waxay isku raaceen in dalka la joogi karo doorasho la'aan oo wax sharciyadaba aan loo baahnayn oo madaxda dawlad goboleedyadu ay iska ahaa karaan madaxweynayaal iyadoo mandate-koodii iyo madaxweynadoodii dhamaaday oo wax doorasho aan la qabanin waxa ugubnugu ah waa waxaan soo jiri jirin dawladnimadana waxaan ka haynaa basaan sheegnay waxay ahayd sharciyad oo kaliya waxa inta dheer in labadii aqal ee baarlamaanka ay baarlamaankii macnihii ka qaadeen oo ay sharaftii ka qaadeen oo ay awoodiisii xil gudasho oo la xisaabtan dabagal iyo korjoogteynba meeshii oo ay ka baxeen waxa la qiimo tiray labadii aqal ee baarlamaanka madaxdii iyo guddoonkiina waxay jeebka u galeen madaxtooyada oo ay ka shaqeeyaan waxa laali iyo wixii ayaga ay rabaan waxa meeshaas ku dhintay isla xisaabtankii xildhibaanadiina kulliintoodii badnaad yaan dhamaantood dhihin waxa ay ka shaqeeyaan danahooda ayaga u gaarka ah oo ayaga tooda ayaa la raacdaa hadday tahay mid xil lagu sasabay hadday tahay mid xoolo la siiyay hadday tahay mid dhul hanti qaran ah lagu laaluushay haddii ay tahay mid la yiri waxaad ku jirtaa liiska doorashada qof iyo codka soo socda ee halka deegaan ah oo Muqdisho lagu qorayo magacaaga oo waxa ka maarmaysaa in dawlad goboleed doorasho lagaga soo sameeyo gobolkii Banaadir oo dadkii u badnaa Soomaaliya ku noolaayeen wax qabadkiisii asagiina waa gabay oo wuxuu ku mashquulsan yahay howl aan loo dirin oo midii loo igmad aan ahayn dadkii waxa lagu mashquuliyay degmooyin iyo qabiilo kale leh ayaa tihiin waxa waqti looga lumiyay qabiil hadda ka horan soo xasuusanaa in 13 kursi la yiri Banaadir la siiyay waqti looga lumiyay dadka reer Muqdisho in degmooyin la siiyay in kuraas la siiyay uma baahna waxay u baahan yihiin maamul ay soo doorteen hadduu yahay heer degmo iyo heer gobol oo ay kula xisaabtamaan canshuurta ay siiyaan taas maadaama ay meeshii ku jirin oo wax adeega dadkii aan loo qabanaynin waxa waqti looga lumiyay waxyaalo oo nacarad jaahili ah oo qabiil u eg inay isku maanto dhan isku haystaan shacabka saas u daalan aad u dhibaataysan yaa meel kasta waxa la taagan yahay wax la yiraahdo canshuur xarga goosatay muwaadiniinta aan la kulmay ee qaybaha kala duwan kulli waxay ka cabanayaan canshuur xad dhaaf ah oo aan la garanaynin jaabka ay ku dhacdo sax waaye dawladdu waxay ku dhisan tahay waa canshuurta muwaadinka laga qaado nooc kasta ay ahaato laakiin waxa muwaadinka canshuurta looga qaadaa in loogu adeego waxaan islahayn xadka canshuurta la qaado iyo
adeegga lagu qabto sababtana waxa ugu wacan inay canshuurtii qaadayaan shirkado gooni ah banaankan lagu kala goosto wixii dadka laga soo qaaday oo dadkii aan waxba loogu qabanin haddii muwaadinka laga qaado canshuur guri canshuur ganacsi canshuur jidka oo maraya gaarigiisa canshuur waxa soo galo inkamkiisa canshuur mishaarkiisa ah canshuur la yiraahdo ama adeeg la yiraahdo qashinka laga qaaday iyo qashinka jidka laga qaaday kulli asaga hadii lagu dalaco oo aan waxba loo qabanin laakiin taas bedelkeeda oo magaaladii bulaacada miran ay tahay jidadkii ay markii roob da'o xirmayaan oo meel la mar aan la arkaynin dadka ay hal saac isaga safrayaan magaalada gudaheeda oo ammaankii aanan horumar intii la keenay dhaafsiisan aan lagu daraynin taas waxay tahay macnaheeda canshuurtaas inay tahay canshuur aan sax wada sax ku dhicin saan ognahayne baarlamaankii la xisaabtami lahaa canshuurtaas muwaadinka laga qaado inay bangiga dawladda ku dhacdo in dadka loogu adeego waa midka aan sheegnay jaabka madaxtooyada galay waxaa soo baxday dhalinyaro yar oo meelaha ilaha dhaqaalaha jooga oo maalin kasta isugu faanaya hantida ay leeyihiin rajiimkii hore waxaan ka qayli jirnay dhalinyaro yar oo security ku jira oo dabaqyo waaweyn dhistay oo hanti tabcaday maanta waxaa soo baxay kuwa ilaha dhaqaalaha jooga oo isugu faanaya hantidii qaranka meeqa guriyada xamarku leedahay meeqa dhismaa kaaga dhisan Nairobi meeqa Istanbul ka iibsatay dhalinyaradii waxay noqdeen kuwa isugu faanaya hantidii qaranka ee la boobay waxaad ogaataan dawladda Kenya maalin waxay soo saartay hay'adda la yiraahdo qiimeynta halista qaranka ee ku aadan lacagaha la dhaqo bishii April waxay soo saartay in lacagta 50% shirkadaha ugu badan ee Kenya wax ka dhisa real estate ku howlan lacagtaas inay tahay lacag la soo dhaqay lacag la soo dhaqay maxaa la yiraahdaa lacag la dhaco magac laga bedelayo waay lacagaad Soomaaliya ka dhacaysa waxaad real estate uga dhisanaysaa Kenya ama guryaad uga dhisanaysaa Turkiga lacag la soo dhacay dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan in meel kasta oo la tago la isku daba jiro dawladdii oo dadku ay u soo wada aadeen inay cadaalad ka helaan inay shaqo ka helaan waxay noqotay haddii aad shaqo rabto rayad oo dawladdu uga baahan tahay ama aad consultancy waxa la yiraahdo adeeg la talin wax ku qaadato ama aad qandaraas wax ku qabanayso inaad haysato cid garab ku ah shaqo ma heli kartid qandaraasna ma qaadan kartid aad ganacsado tahay waxa kale oo aad heli karin adeeg la talin ma helaysid ilaa cid inaad ku xiran tahay oo networkaas ama garab ina haysto maahane waxa meeshii ka lumay in dadkii muwaadinkii Soomaali oo fisho inuu cadaalad iyo si sinaana wax ku heli karo kartidiisa oo wax ku heli karo meesha ay ka baxday qof walba taas ayaa keentay marka wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda inay noqdaan nin walba loo dhiibo inuu tolkiis ka naaxiyo muwaadinkiina uu ka quusto inuu cadaalad iyo sinaan iyo karti wax ku helo waxa la mid ah in diblomaasiyadeena iska noqotay safiir walba meesha uu joogo inuu asaga go'aan ka gaaro oo waxa dhacday in qadiyadii sarabanidsa aan ogeyn ee lagu xasuuqay kumanaan kun ee muslimiin Bosnia ah in ay dawladda Soomaaliya codkeedii kala dhuumatay ay ku taageer lahayd dadkaas taas waxa keenaya inay siyaasadda arrimaha dibadda wax itijaaha iyo wax direction lahayn waxa la mid ah warqadaha isdabayaacaya marna lagu xiraayo xafiiska UNSOM marna la leeyahay ma aha sidii loogu tala galay hadalada soo baxaya la leeyahay AMISOM xilligaas ay bixaysaa sanadka dhamaadkiisa haddana leeyahay madaxweynihii Kenya oo leeyahay Soomaaliya hadii ka baxaan AMISOM waa gacanta waxay u galaysaa al-shabaab oo sidii asaga inuu wakiil naga yahay oo kale waxaad arkaysaa ayadoo leeyahay maya ciidanka magaca laga bedelaya shaqada laga bedelaya dadka Soomaaliyeed marka wax ay ka haystaan aragtiya arintaas ma jiro hoggaanku xil maaha jagana maaha hoggaanku waa inaad samaysaa inaad jihayn kartaa shacabka rajana abuuri kartaa iyo diila geli kartaa ummadda una bidhaami kartaa hiraal qalan oo ay higsadaan hoggaanku waa inay dadku aaminaan waa in la qadariyo qowlkiisa taasina waxay ku imaan kartaa inuu shacabka hoggaanku u adeego daacadnimo hufnaan cadaalad iyo sinaan naftiisana uu sharfo tuhun kasta oo ama qabiil ama ku tagrifal awoodeedna uu ka fogeeyaa dawladdu waxay ku jirtaa sanadkii saddexaad
waxaa u harsan muddaxileedkeeda labada aqal iyo madaxweynaha waxaa ka harsan sanadii dhowr bilood markaad dhageysato xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ama kuwa ugu dhow ee xisbiga madaxweynaha ah waxay dhammaantood kuu sheegayaan dowladdii inay noqotay shirkad yar oo in kooban oo ehel iyo qaraaba ay ka taliyaan dadku waxay is leeyihiin madaxweynaha aqoonna kuma yara waayo aragnimona kuma yara daana kuma yara see waxay yihiin laakiin madaxweyne cid kor wax kugu sheegtaa ama kuula dhiirataa ma jirto waxaan kugu naseexaynaynaa madaxweynow muddada kooban ee taladaada ama muddaxileedkaada ka harsan in aad dalka badbaadiso adigana sumcadaada iyo dhaqankaaga oo noqdo aad badbaadiso dhaqankaagana oo noqdo mid dhaxal reeb oo taariikh iyo legacy ka taga waxaan kuula tali lahaa inaad dalka u dhisto xukuumad tayo leh oo qaadi karta muddada yar ee kooban ee harsan mas-uuliyadaha iyo taxadiyaadka hor yaalla oo aad iska dhaaftid dhalanteedka ah xukuumad aan karti lahayn inay dalka intii yar ee ka hartay muddadii waqtiga aad uga lumiso ogolaaw in dowlad goboleedyada ay galaan doorashooyin dhalanteedka ah iska joogo kursiga anigana hadhowdii markay iga dhammaato idinka igu taageera inaan joogo oo aanan doorasho la qabanin iyose waqti kaa luminin dowlad goboleedyadu waa inay doorasho galaan sharciyad ayaa dal lagu dhaqaa sharciyad ayaa dal lagu maamulaa laakiin sharciyad la'aan xukun laguma joogi karo ogolow in tala midaysan dalka halkii uu ka aadi lahaa sanad iyo xogaaga harsan kadib doorasho noocee ayaa la gelayaa qaabkee ayaa sharciyadda lagu waasicinayaa dowladnimada in lagaala yeesho dagaalka al-shabaab sidoo kale in tala midaysan lagu wajaho bixitaanka amisom iyo xiritaanka xafiiska unsumba inay tala midaysan ku timaado ogolow labada aqal ee baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan odayaasha guddoonka ka ah labada aqal inaad baarlamaanka sida u dhaantaan oo aad noo soo celishaan sharaftii aan ku ahayn mudnaan aan ku lahayn wakiillo ummadda matala dadka duruufaysan ee aan ku dhex noolnahay diyaarado kuma kor raaci karna maalin kasta hoteelo 5 starna kuma duldegi karno ayagoo dadka Soomaaliyeed dhibaatada aragtay ila daala dhacayaan inaan ka danaysano oon doomo ku dalxiisno suuragal maaha dadku waxaa naloo soo doortay oo wakiilo nool kaga dhigay inaan danahooda aan ka hadalno Abu Cabdiduux wuxuu yiri khayr Allah siiye dhidid baa ka daayo diif baa ku raagto bulshada lan weeye durdarada xareediyo yaa damalka geyn kara dareenkii wadanigiyo yaan ka dhiman damiirko dhibaatadu damqaysa waa inay dhibta dadka haysaa ayna dabaqdaa ayna anaga danaysano oon dalxiisno oo aan dibadaha wareegno oo inta yartaa oo aan magaca canshuurta dawladda ku qaadano oo mishaarka ah inay naga soo muuqato dadka wax ugu qabano ayaa loo baahan yihiin hada wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi